caafimaadka saraakiisha u dhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo carruurta iyo saldhigyada booliska ayaa ku sheegaya in xilligan ay jiraan xaalado badan oo la xiriira kufsiga. Aamina Xaaji Cilmi oo kamid ah haweenka u dhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa u sheegtay VOA in maalmihii dambe arkayeen dhacdooyin kufsi oo xanuun badan. Si u soo saacidayo kufsi fool xun oo habaysan oo si u habaysan si liidato oo habaysan oo gabdhaha yarka lagula kacayo waliba kufsi u daba socdo dil u daba socdo oo dilkaasuna ay yihiin koox ku heshiisay inay maxay tahay falkan sameeyaan kadibna uu dhibkaas u dhaco hada dhibabka aad dhacay maxay tahay aad maqlaysay oo maxay tahay ka dhacay carrada teelada ahaato carrada kala ahaato waxa calool xumo iyo murug ah ilmo yar yar oo barshan jirta iyo waxaas waa murug iyo calool xumo marka xanuun badan iyo dhib badan iyo fool xumo badan oo wax la diinteeda dad muslimiinahanaay ay sintiintooda ogoleen dhaqankuna uusan ogoleen bini aadamnimaduna uusan ogoleen ayaa dhacayo oo istaba jooga oo aad moodo inay si u soo saacidayaan. Raxma Cilmi Sane oo sargaal saro ka tirsan hay'adda tubta nabadda oo qaabilsan difaacidda xuquuqda carruurta ayaa u sheegtay VOA in xilligan ay jiraan kiisas badan oo kufsi loo geysto gabdhaha. kufsiga kamid ah oo aad iyo aad hadda ugu baahay dalka oo haween yar yar ah ama gabdho yar yar in la kufsado la reebgariyo maxaan ku yiraahdaa la dilo maxaan ku yiraahdaa waxa kamid ah gacdiye jireed baa kamid ah waxaan aragnaa gabdho yar yar oo la gubay waxaan aragnaa gabdho yar yar ah oo maxay yahay lagu shaqaysto oo guryaha joogo oo jaalay barki ah oo lagu shaqaysanayo oo kiisaskaas oo dhan waa kiisaska aan hore u aragnay ee aan gacanta ku hayno aan la tacaamulno waxaan aragnaa ilmo yar yar oo maxay yahay abuse loo geysto oo abuse jireed loo geysto iskuulada qaarkood maxay yahay lagu tacdiyo la garaaco ama wax lagu sameeyo markaan soo laabtay da'da ay la kulmo maxay yahay xadgudubka la kulmo waxaa kamid ah da'da ka yar 15 sano ama 18 sano ka yar waa da'da aad iyo aad loogu tinto oo markaan loo fiirinayo da'yarta gabdhaha ah sababta ay tahayna ma wax u ololeynayaan oo yar yihiin ayagana ma helayaan cadaalad fiican oo maxay yahay hadii lagu xadgudbo ayagana access ma helayaan cadaaladii naftirkeedina ayagana ma sugaysa in qofkii xuquuqdiisii la siiyo hadii lagu xadgudbo maadaama bini aadan uu xadgudbi karo laakiin waxaa fiican in qofkii markuu lagu xadgudbo la siiyo maxaan ku yiraahdaa wixii xuquuqdiisa ahaayay qofka dulmanaha ahaay uu lahaa in qofka dulmana laga jaasiyeeyo marka taas ayaa ku iskreynaysa in gabdhaha laguna xadgudbo maxaan ku yiraahdaa aysan helin haddana cadaalad. isbitaalka Madiina waa halka la geeyo dhibanayaasha loo soo galmoodo si loo xaqiijiyo xaaladooda. Maalmihii dambe waxay arkayeen kiisas badan gaar ahaan carruurta sida fiyoda u sheegtay Dr. Hodan Ahmed oo sargaal qaabilsan qaybta baarista kufsiyada. carruurta kiisaska soo kororto waa kala duwan yihiin wiilal iyo gabdho waa iskugu jiraan waxayna ka yimaadaan degmooyinka Muqdisho kaliya ma ahane Muqdisho hareeraheeda deegaanada ah Afgooye ilaa Balcad iyo gobolada kale xataa qaar waa ka imaadaan marmar marka carruurta wiilasha iyo gabdhaha wiilasha aad u badan oo dhibka u soo gaara marka waxayna wiilashan iyo carruurtan dhibkooda oo loo arkaa waxa way dhaawacooda oo muuqanayo aniga maadaama uu qaan gaarin oo dhibka uu geystay uu san gaarin probab ay ku ahayn in cunugan dhaawaciisa uu san qarin karin iyo cunuga inuu wixii si waafi u sheegay hadii la weydiiyo kale soo wax qarinaynin marka dhibka ilmaha saasan ku aragnaa marka waa soo laabanaysa waa soo la arkaa maalin walba cunug in la arko qasab ah agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Hashim Maxamed Faarax ayaa u sheegay VOA inay arkayeen tiro badan oo kufsiya marka loo eego bilihii la soo dhaafay waxa way dhacdooyinkan hadda oo media laga sheegay wax ka tiro badan ay anaga maalinta soo gaaro waxyaabo oo aan aqliga qaadanayn saliimka hadda koorna uu ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare waxa naga dhaqan oo ahayn dhaqan ka baxsan ayaa barihan la kulana oo waxa way inta xataa laga ma sheegi karo say u falxuntahay hadalka adiga waxa way waa yoomiin waa tasoo waqtiga maalintii waxa waa hadii hal maalin wax lagu keenin maal labaad ka arkay laba qof oo saddex qofood oo gabdho yar oo dadka waaweyn oo laga yaabo xataa in uu waadin
dahan loo fiirsho ayaa waxa lagu leeyahay qofkan waxa waaye waa dhibana waaye falkasna waxa geystay qof noocaas baaristoodna weli uu socdaa marka waxa waaye detail ahaan ma faahfaahin kari marka uu kordhay dadka uu isu kordhaysa tirada ka bateen waxa uu baahan yihiin hamar gees laga soo jeesto oo si cilmiyan aqliyan markano dadkan حتى نكان وحلو أذنا إنه في المنتلي وحقق ضنا وسوي حجران عافمات كيسا khubarada caafimaadka ee dadka sida gaarka isha ugu haya xaaladaha kufsiga Soomaaliya ayaa u sheegay VOA inaysan haysan qalabka lagu baaro hiddo-sidaha loo yaqaan DNA si loo xaqiijiyo kuwa dhibka geystay DNA-da tusaalaha yar haddaan kaaga siiyo waxa waaye waxaan imaanaya waxa waa gabar Soomaaliyeed oo dumar ah oo markaas oo dhahayso waxa waaye waxa ay geystay waxa oo fal dambiyeedkii marka anaga baarayna waxaan fiirinaa waxa waaye waa dhaawac meesha ku yaalo iyo waxaan ka baarnaa qofkan meesha ma shahwa ku jirto Soomaal laakiin ma dhigi kari waxa waaye hebel iskale ninkii oo la leeyahay wax lagu tumay iyo hataa isla qofkii oo markaas dhibanaha oo laga yaabo waxa waaye intaqana in oo iskaga been abuuray DNA-daas wuxuu ku sahlaa in la dhigi karo hebel wixii laga baaray gabadha bas yeesheen marka la soo qaldi karo qofna marna la soo qaldi karo aad muhiim u tahay wax soo laabanaya waaye waxa waaye waa case hadii oo si loogu talagalay oo aan loo baarin qof dambi u lahayn ku mutaysan karo saraakiisha caafimaadka kuwa booliska la hadla waxay ii sheegeen in xilligan baahin weyn loo qabo helidda qalabka wax lagu baaray loo yaqaan DNA si ay meesha kaga baxdo tuhunno badan oo yimaada kufsiga kadib maadaama ay adag tahay helidda cadeymaha mararka qaar